السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أمد الصوماليات يكون الودن كان إنجليز كإسلام مركزنا عرور تودو أي دكتان دوكسيدا هوسا كوبا سرئي كوبا دحبا وحان دونينا إن آدنا لأوداكتان إن شان إلاباتنك بشان فبري لبدا كون إيو سغال إيا تبانك بارلمانك ودن كان إنجليز كالهور كيني دونو دوت كسابسان إن عرورتا كونو الودن كان إنجليز كالبرو مادادا لغو مقعابو RSE ومعنى ويهي relationship sex education arintani oo ay runtii dad badan oo wadankan Britain ku nool ay aad ay kaga walwalsan yihiin isla markaasina ay u badan tahay in dhibaatadeedu ay markaas ay keensato arintani ayaa markaasi dawladda wadankan Ingiriiska waxa ay sameeyeen system cusub oo aad u fudud oo qofka waalidka ah inta uu galo si toos ah oo markaas MB-ga xaafadiisa uu ugu dirayo sida uu arintani uu kaga soo horjeedo شيخ أسولي ما هو كيري أرنتن ما دام عضدك هذا بحسمين إيميل هذا أو حلو درا ليري إن كونسل كركستو إن بورو كستا قفك أو كونسل كار أو حكومة إن كونسل نكمل بعدك مرك إيميل كوقرني هاي اسم إنجليزي وكديارسني هاي هذا ماشان كليك أقسمين إذا ماشان إيميل كقرنتها أو ستوبريس أورجن أد إيميل كقرنتها هاي كاس أيا كليك لسينيا waxa ku qoraysaa post code-ka xaafadda degan tahay waxa ku soo baxayo maayarkaaga oo magaalada ninkii gobolka boorogaaga xukumay kadibna email-kaaga kaliya ku qoraysaa sent leeda email diyaarsan oo xataa magacaaga hoos ku soo qormaayo wax dhan waa la diyaariyay marka nin kasta inuu u diro boorogiisa email u diro consulkiisa ayaa loogu talagalay si aan xagga markay tagaan oo lagu qabto marka arintii ahayd waxa la garaac geedkii oo la sameeyay kana ka muhiimsan aliir marka email-kan oo link hoos kaliya hala sayo hal lagu sameeyay kadibna email-kaaga ku qor oo post code-kaaga ku qor waxa ku soo baxayo MB-gaaga oo magaalada ku soo baxay xaafadda degan tahay email-kiisa xataa lagu sheegay ku diyaarsan adiga sent ila dhehaysa bas email-kaaga ku qoraysa sent haddii aad markaasi tahay waalidka walwalka uu arintan u ka hayo fadlan buuxi sida fudud oo markaasi Sheikh Cusmaan Usuli oo idinkugu micneeyay isla markaasina aad ula xiriirtaan MB-ga xaafadiina waa Saalim Dhoore wabila tawfiiq